mooska laguma naaxo wuxuuna u fiican yahay caloosha, jidhka, wadnaha, maskaxda iyo dhammaan unugyada jidhka bini'aadanka ah. dad fara badan ayaa waxay aaminsanaayeen awal in moosku xasharaad caloosha ku dhaliyo, qaar kalena waxay aaminsanaayeen inuu dadka naaxiyo. haddaba intaas midna ma aha. moosku waana raashin dhammaystiran oo ilaahay uu kaamilay, wuxuuna kuu bedeli karaa oo kuu geli karaa bedaalkii nafaqooyin fara badan oo jidhkaaga ka maqnaa. dadyowga horumaray hadda raashin walba oo ay cunayaan waa ay ku darsadaan inta badan cunitaanka mooska, waxayna ka dhigtaan caado inay mar walba mooska isticmaalaan. bal haddaba dalkeena Soomaaliya oo ah wadamada sida aadka uga baxo moosku kama faa'iideysano ama maba naqaan faa'iidooyinka faraha badan ee uu ilaahay ku manaystay. haddaba belile wadaag 10 faa'iido oo ilaahay uu ku manaystay mooska. waa tan koowaade, moosku waxa uu fiican yahay urku jirta oo waxa uu la dagaalamaa calool istaaga oo fiber fara badan ayuu ilaahay siiyey. waxa uu la dagaalamaa nabarada caloosha iyo bakteeriyaha oo marka dambe dhaliya qofka inuu gaas iyo calool olol qaado. inta badan qofka mooska cunaana ma qaado gaas iyo calool olol toona. faa'iidada labaad ayaa ah mooska oo u fiican muruqyada jidhka bini'aadanka ah, wuxuuna siiyaa maadada potassiumka oo muruqyadu ay u baahan yihiin. faa'iidada saddexaad ee mooska ayaa lagu sheegay isaga oo la dagaalama daalka iyo dekaanka. qofka bugtaanka oo tabar dareeya ayaa inta badan waxa u fiican in moos fara badan la siiyo, waana soo kabtaa oo quwad ayuu yeeshaa. faa'iidada afraad ayaa ah mooska oo la dagaalama dhiigkarka, wuxuuna moosku ka saaraa sodiumka oo ah sun jidhka bini'aadanka ku kaydsanta. faa'iidada shanaad ee mooska ayaa lagu sheegay mooska oo la dagaalama wadna xanuunka, wuxuuna moosku ka saaraa cholesterolka ama subaga dhiiga ku jira oo uu ka sifeeyo. faa'iidada lixaad ee mooska ayaa lagu sheegay mooska oo qofka dhuuba oo qofku noqdo qof siman. faa'iidada toddobaad ee mooska ayaa lagu sheegay mooska oo jidhka bini'aadanka qurux badneeya kana saara sunta oxide-ka oo jidhka ku keensanta. wuxuuna inta badan qofka mooska cunay ma yeesho duuduub, wuxuuna u egyahay qof iska dhalinyar. faa'iidada sideedaad ee mooska ilaahay ku manaystay ayaa ah mooska oo la dagaalama dhiig la-aanta, wuxuuna siiyaa maadada birta ah oo uu u baahan yahay oo ilaahay mooska uu ku manaystay. faa'iidada sagaalaad ayaa ah mooska oo sare u qaada moraalka qofka, siiyana awoodda tryptophanka oo markaa dheecaanka serotoninka maskaxda ay soo daadiso, wuxuuna helaa qofku hurdo fara badan, waana farxaan mar walba qofka mooska cuni. faa'iidada tobnaad ee mooska ayaa lagu sheegay inuu la dagaalamo nervoska, waxayna siiyaa moosku vitamino fara badan uu ka mid yahay vitamin B-ga. qofkuna wuxuu noqdaa qof maskax furan oo inta badan qofka mooska cunay waa nin qof maskax furan oo aada u shaqeeya. marka walaal isku day inaad mooska badsato mar walba oo cunadaada aada cunayso. isku day inaad mooska ku darsato, waxaana fiican inta badan qofku inuu mooska marka uu cunayo uu keligiis cuno ama uu ansalaad ku darsado. ka faa'iideyso oo cun mooska. mooska ayaa waxtar fara badan leh. mooska ayaa aada loo ammaanay, takhaatiirtuna qof walba waa ay u sheegaan in mooska la badsado cunitaankiisa, waana wax aada iyo aada faa'iido ugu leh jidhka bini'aadanka.